maalinta ciida oo shalay ahayd haddaan hilmaamay waxyaabo qaarkood liiga baahnaa inaan sameeyo maanta ma samayn karaa. midda kalena ciida ma hal maalina mise way ka badan tahay, waa dhowr maalmood. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaa darsi jaamic adduunkaad ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ciidukum mubaarak wataqabal allah mina waminkum saalix alacmaal. su-aal waxaa jirto dadka qaarkooda isweydiiyaan, maalinta ciidda waxyaabo badanaa liiga baahnaa inaan sameeyo. waxyaabihii qaarna waa sameeyey, qaarna waa sameey waaye, ama waa hilmaamay, ama waa awoodi waayey, ama cudurdaar kalaa igu dhacay. maanta ma samayn karaay. marka su-aashaasaan rabnaa inaan ka jawaabna insha allah tacaala. jawaabta waxay tahay dadka waa labo. adiga kee ka mid tahay? dadka xujaajta maa ka mid tahay, mise dadka oo xajka aan aadinaa ka mid tahay? haddaa ka mid tahay dadka xajka aaday, qofka xaajiga maalinta tobanaad oo ciidda waxaa laaga baahan yahay 5 arrimood inuu sameeyo. kow waxaa waaye jamaraadkii inuu tuuraa laaga baahan yahay. mina markuu musdalifa kasoo tago mina jooga intuusan maka aadin inuu tuuraa laaga baahan yahay. 2 tawaafkii inuu sameeyo. 3 sacyigii inuu sameeyo. 4 timihii inuu xiiro. 5 inuu dabxigii sameeyo. 5taas arrinaa laaga baahan yahay maalinta ciidda inuu sameeyo. laakiin dadka badi inaysan awoodinaa laga yaabaa. ma ay awoodin maalintaas, ama waqtigu u saamixi waaye, ama duruuftii u saamixi weysaa laga yaaba. muxuu samayn karaa? intuu maalin 10aad sameeyey maayo, inta kale maalinta kale wuu samayn karaa. maalan hadduu 3 sameeyey, 2 kale maalinta 11aad wuu samayn karaa insha allah tacaala. wax dhimala culimmada waqti u kula joogtane weydii khayr allah ku siiya. haddaa ka mid tihid dadka aan xujaajta ahayn, xaj ma aadin, ilaahay kuumuusan qadirin inaa sanadka inaa xaj aadid, gurigaaga iska joogtid, maalinta ciidda marka waxyaabaha ahayd inaa samaysid ma samayn kartaa. waxaa ka mid ah maalan udxiyaa rabti inaa samaysid, xoolaa rabti inaa qashid, laakiin waa kuu suurtageli weysay. maalinta ciidda leen lagu jiraa aragtay, adina waqti ma haynin. maalinta ciidda ma niyadaadaba kuma jiro. markaa aragta udxiyadii iyo waxeeda haddaa niyeysat inaad samaysa, ma samayn kartaa? haa, waa samayn kartaa insha allah tacaala. marka haddii shalay ay ku dhaaftay, ciidda haddii ku dhaaftay, maalinta ciiddana xoolaha qashid haddii ku dhaaftay, oo hadda aa niyeysatay, ama maalinta ciidda haddaa waqti u waysay, ama leenku uu kugu dheeraaday, si kastaba ay noqoto aad samayn weysay, maalinta ku xigta oo 11aad oo maanta waa samayn kartaa insha allah tacaala. wax dhib haba yaraatee ma jirto. laan udxiyada ilaa 11ka 12 ilaa 13 xataa waa la samayn karaa insha allah tacaala. udxiyadaan rabi wax yar inaan ka hadlo, xooga saaro. udxiyada soomaalida saas uguma fiicno oo saas uma sameeyaan, even though culummada jumhuurka waxay qabaan sunno mu'akada inay tahay, laakiin culamo kalaa qabtay inay waajib tahay. qofka hadduu awoodo marka udxiyo inuu xoolo qalo, waa loo baahan yahay. haddaa awoodid inaa samayso, hadduu ilaahay awood ku siiyey, ku sadaqayso oo sameey. faamil kasta 1 neef ariyaa laga qali karaa, labadii faamil 2 neefaa laga qali karaa. haddaa rabtan 7 faamila lo gadan kartaana qaybsan kartaan, ama geela gadan kartaa waa qaybsan kartaan, laakiin faamil walba 1 neef unbaa laga rabaa. haddaa awoodid khayr allah ku sii, bakhiil ha noqonin, udxiyada sameey. haddii maalinta ciidda ku dhaaftay, maalin labaada sameey, oo maanta ama berri sameey, ama berri dambe, intaba waa samayn kartaa. udxiyada aan ku dadaalna, laan udxiyada Soomaali haddaana aaday noogu yar tahay. carabaha waxaa le ciidil, waxaa le laxmaaba la dhahaa, wadada dhan dhiigaa lagu qala, laakiin Soomaalida way ku yar tahay. sunnadaas aan soo noolayno, khayr allah idin siiye. ugu dambeynta ilaahi subxaana watacaala waxaa weydiisana dembigeena inuu dhaafo, dembiga waalidkeena dhaaf. aamiin dhah. jazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum. ciid mubaarak wataqabal allah mina waminkum saalix alacmaal. haddaadan udxiya sameyna, sanadkan udxiya samey, khayr allah ku siiyo. walaalaha kalena usii gudbi. jazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum. ilaah dartiisa idin jecla. ciid mubaarak. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.